xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo la sheegay in olole ugu jiraan muddo kororsi ayaa waxa ay beeniyeen inay ka shaqeynayaan waqti ku darsi ama muddo kororsi. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya. iyadoo muddooyinkii dambe la isla dhaxmarayay in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay wadaan mooshin muddada loogu kordhinayo hay'adaha dawladda ayaa waxa arintaasi ka hadlay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo la hadlay radio Kulmiye isla markaana wax lagu weydiiyay arinta mooshinka oo muddada loogu kordhinayo hay'adaha dawladda oo ay wadaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa waxa uu sheegay in arintaasi aysan jirin isagoo sidoo kale sheegay in xildhibaanada go'aanada ay qaadanayeen ay yihiin kuwa ku saleysan dastuurka dalka. والله horta kulmiye mushkiladu waxa qiila waqaala wax la yiraahdo ayaa moodaa inay يعني جهورير Soomaaliya maanta siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale iyo mid bulshadeed yani ay noqotay mid amniyad wax saameyn ku leh marka ugu horeysa baarlamaanka talaabo kasta haduu qaadayo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay noqonayso talaabo waafaqsan mid dastuuri ama mid sharci oo markaasi wada loo maray oo la yaqaano oo markaasi loo cuskaday laakiin wax caadifad iyo wax lagu riyoodo ama wax sida uu rabo uu ka yeelayo waxa mooshinka la keenay mooshinka illa horta marka uu waran salaad waqtigeeda la tukadaa baan ku iraanay waxaan ka hadlay karo waxaan ba la gaarin war mooshinka waxa ka sokeeyo time waxa ka horeeyo maartay go'aan la keeno baarlamaan waxa ka horeeyo maartay wada loo maro waxa ka horeysa xaalad ayada keeni karta inay meesha timaado wax aan ba jirin meel ka hadlideeda anaga dhamaantood aan nagu wareerisan maartay erkawada iyo madaayo iyo wada abaalalaha iyo tan iyo markii xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay xilka ka qaadeen xukuumadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxa soo ifbaxayay in xildhibaanada qaar ay wadaan mooshin muddada loogu kordhinayo hay'adaha dawladda. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxayo qaraxyo waaweyn oo burburiya caasimadda waddanka Lubnaan ee Beirut. sidoo kale dawladda dalkaasi ayaa gargaar dunida ka dalbatay. dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa uga tacsiyay dawladda Lubnaan qaraxyada dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay caasimadda waddankaasi. Maslax Abuukar Xaaji ayaa ka waramaya. musiibada ka dhacday caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan waxa ay tahay mid dunida oo idil si isku mid ah looga dareen celiyay murugada la xiriirta sida ay wax u dhaceen. waxaa la leeyahay inta badan caasimadda dhismayaashii qurxoona ayaa burburay iyadoo ay jiraan dad badan oo raq iyo ruuxba lagu laayahay welina dawladda waxa ay wadaa gargaar aad u xoogan oo la xiriira sidii loo baxnaanin lahaa dadka dhaawacyada ay soo gaareen. wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa dibaddaba ay baahinayaan ee la xiriira khasaaraha waxa ay sheegayaan 78 qofood in ay geeriyoodeen inta la xaqiijiyay 4,000 oo qofna dhaawacyo ay soo gaareen kuwa oo la geeyay cisbitaallo ku yaala gudaha qayb ka mid ah caasimadda iyo weliba duleedka caasimadda. xajmiga qaraxyadan ayaa waxay ahaayeen kuwa laga dareemay meelo aad u fogfog waxaana ka mid ah meelaha laga dareemay jasiiradda Qobrus iyadoo duleedka caasimadda xitaa dhismooyin qurux badnaa oo aad u waaweynaa oo ku yeelay ay dumeen. madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta shir degdeg ah ayuu isugu yeeray golihiisa wasiirada isagoo u sheegay in xaalad degdeg ah la gelinayo muddo 2 toddobaad dalkaas muddo 3 maalmood ahna baroor diiq loo sameynayo dadka musiibada ay ku dhacday. ma uusan ka hadlin khasaaraha rasmiga ah laakiin wuxuu muujiyay in musiibo rabbaani ah dalkaasi ay ka dhacday oo iminka aan laga hadli karin sida ay wax u dhaceen. waxaa sidoo kale arrintaas ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Xasan Diab oo isaguna sheegay in marka loo eego musiibada ka dhacday Beirut ay tahay mid loo baahan yahay in si midnimo leh ay u wajahaan dadka reer Lubnaan oo aan cidna lagu eegan isagoo ugu baaqay saaxiibada caalamiga ah ee Lubnaan in ay garab istaagaan walaalahooda Lubnaaniyiinta oo iminka wajahaya xaalad adag. أيها اللبنانيون لقد أصابتنا كارثة
dadka reer Libnaano waxay nagu dhacay musiibo weyn balse waxaan ku kalsoonahay in dadaalka ugu weyn aynu wada gelin doono arintan mali waliba aad ku sugan tihiin waxaan idinku tartarsiinayaa inaan u midowno maanta u gargaaridda walaalaha dhibka soo gaaray iyo u boogadhayida dhaawacyadeenna iyo dhaawaca soo gaaray dalkeena xilligan aynu taagannahay waxaan ugu yeeraynaa dawladaha walaalaheena ah iyo kuwa saaxiibadeenna ah ee waliba jecel inay garab istaagaan in kaalmo degdeg ah ay la soo gaaraan dhaawacyadeenna kuwoodii ugu halista badan dadka reer Libnaan musiibo ayaa ina heshay balse waxaan qalbiyadeenna ku daweynaynaa qowlka Allah وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sidoo kale waxaa dadka reer Lubnaan intooda badan baraha bulshada ay ku qorayaan in ay u baahan yihiin caawin la xiriirta gacmo caalami ah ama saaxiibada caalamiga ah ee dalkaasi mas'uuliyiin kala duwan oo dunida dacaladeeda ku sugan ayaa ka tacsiyeeyay musiibada ka dhacday Beirut iyagoona sheegay in hiil iyo hooba ay la garab istaagayaan madaxda dalka Lubnaan oo ku mashquulsan sidii loo maareyn lahaa dadka musiibada ay haleeshay siyaaya xilka ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaare Xasan Diyaab isagoo uga tacsiyeeyay mashaqada halkaas ka dhacday una muujiyay in Soomaaliya ay garab taagan tahay iminka walaalaha Lubnaan Justin Trudeau ra'iisul wasaaraha Canada ayaa sheegay in shacabka Canada ay xanuun dareemayaan isla markaana ay u taagan yihiin sidii ay u gargaari lahaayeen dadka reer Lubnaan Abiy Ahmed Ali ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa isaguna waxa uu si kooban uga hadlay dhacdadan oo uu sheegay inuu ka tacsiyeenayo musiibada halkaas ka dhacday Ethiopia ay dareemayso xanuunka ay dareemayaan shacabka reer Lubnaan wuxuuna sidoo kale faray qunsuliyadaha Ethiopia ay ku leedahay dalkaas in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka dhibaatooyinka ay halkaasi ka soo gaareen wararku waxa ay sheegayaan in qaraxyadan ay suuragal tahay inay ahaayeen kuwa siyaasadeysan inkastoo mas'uuliyiinta dawladda gaar ahaan ra'iisul wasaaraha uu shaaca ka qaaday in keyd hub oo yaalay dekada weyn ee caasimadda mar qaraxyo laga maqlay taasna loo badinayo in sabab ay u tahay waxaana halkaasi ku keedsanaa muddo 6 sano ah keyd hub ah gaar ahaan miinooyin aad u culculus laakiin waxaa tallaabadan ay ku soo wajahantay xilli ay muuqato in maxkamad ay leedahay qaramada midoobay ay go'aan rasmi ah ka gaari rabtay dilka ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Rafiiq Xariiri oo 2005 la qaarijiyay Xariiri dilkiisa waxaa loo haystaa ilaa 4 qofood oo taabacsan kooxda Xuutiyiinta ee taageerta dawladda Iiraan waxaana raggaasi ay diideen inay ka tirsan yihiin kooxdaas isla markaana dilka Xariiri ay ka dambeeyeen laakiin iminka xaaladda waxay u muuqataa in si dhab aan looga hadli karin cidda qaadaysa mas'uuliyadda musiibada ka dhacday caasimadda quruxda badneed ee Beirut maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay qaar kamid ah wasiirada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ka soo jeeday Hirshabeelle ayagoo ka wada hadlay arrimaha kala duwan ee la xiriira xaaladda Hirshabeelle madaxweynaha ayaa wasiirada ula kulmay waxaa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Maxamed Abuukar Salow Ducaale wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Canshuur Xasan wasiir ku-xigeenka gaadiidka Cismaan Cabdi Daalo waxa ayna iska xog wareysteen madaxweynaha iyo wasiiradaasi xaaladda siyaasadeed midda amni iyo tan bulsho ee Hirshabeelle iyo horumarinta guud ahaan deegaanada maamulkaasi sidoo kale kulanka waxaa madaxweyne waare ku wehliyay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi iyo wasiirada madaxtooyada amniga iyo dib u heshiisiinta Hirshabeelle inta uu kulanku socday ayaa waxaa la isla soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo sidii dalka looga samata bixin lahaa xaaladda adag ee haatan uu ku jiro iyo sidii doorasho heshiis lagu yahay ay dalka waqtigeeda uga dhici lahayd maxamed cabdi waare ayaa maalmahan ku sugnaa Muqdisho isagoona waday kulamo uu la qaadanayo siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta dawladda iyo xubnaha beesha caalamka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay gobolada Sool Sanaag iyo Awdal ayaa waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan dhaqdhaqaaqyada lagu doonayo midnimada oo halkaasi ka socda Liibaan Nuur Xasan ayaa ka waramaya
xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay deegaan doorashadoodu tahay gobolada Sool, Sanaag iyo Awdal ee waqooyiga Soomaaliya ayaa waxay warmurtiyeed ka soo saareen kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. xildhibaanadu waxay sheegeen in kulankooda ay uga wada hadleen xaaladda guud ee goboladaas gaar ahaan dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha, waxayna muujiyeen inay ka soo horjeedaan gooni sutaaga Somaliland iyagoo xukuumadda Somaliland ku cambaareeyay caburin ay sheegeen inay ku hayso xorriyadda hadalka. xildhibaan Cilmi Maxamed Nuur ayaa warbaahinta u akhriyay 3 qodob oo ku xusan war saxaafadeedka xildhibaanadaas. annagoo xildhibaano ka mid ah labada gole ee baarlamaanka oo ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Awdal waxaa noo qabsoomay kulan hordhaca kaas oo aanu kaga wada hadlaynay xaaladda ka jirta gobolada dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha iyo deeqaha intaba. waxaa kulankan hordhaca ah la isla qaatay arrimahan inaanu isugu nimaadno shir ballaadhan oo aan kaga wada arrinsanayno xaaladda siyaasadeed, tan amni ee ka soo cusboonaatay gobolada waqooyi Soomaaliland. 2 maadaama aanu u taagannahay midnimada qaranka, wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo doorka nagaga aadan wada hadallada iyo saamaynta ay yeelan karaan, waxaa la isla arkay inay lagama maarmaan tahay in ahmiyad weyn la siiyo matalaadda deegaanada ay xildhibaanadan labada gole matalaan iyo mudnaanta ka turjuminta dareenka shacabka ee goboladaas iyo ummadda Soomaaliyeed ee Soomaaliland. 3 waxaanu soo dhaweynaynaa dareenka cadaaladeed ee ku dhisan cadaaladda iyo midnimada ama ka turjumaya cadaalad iyo midnimo oo ay dadku ku doonayaan midnimo ku raadinayaan ee ay muujiyeen dhalinyarada, isimada iyo hormoodka bulshaduba, taas oo ay ku cabireen qoraallo aad ka aragteen shaashooyinka telefishinada iyo baraha bulshada dhammaantood oo ayaamihii u dambeeyay oo dhan ka socday goboladaasi iyo kacdoonnada dibadbaxyada ah ee ay dadku ay markaasi ku cabirayeen diidmada ay ku diidayaan gooni goosadnimada iyo cadaalad darrada. waxaan cambaaraynaynaa xoog kasta oo lagu caburiyo xorriyadda hadalka iyo ra'yiga iyo madax bannaanida fikirka siyaasadeed oo ay runtii dhaqan u noqotay maamulka ee goboladaas. tan iyo aasaaskii maamulada Puntland iyo Somaliland waxay ku hardamayeen gacan ku haynta gobolada Sool iyo Sanaag in lagu dul dagaalamo mooyee wixii ka dambeeyay burburkii dawladii dhexe ee dalka. dadka ku nool gobolada Sool iyo Sanaag ayaan helin wax daryeel dawladeed ah. dowladda Sweden ayaa hooyo Soomaaliyeed oo dalkaasi ku nool ka qaadatay dhammaan carruurtii ay dhashay, waxaana carruurtaasi ku jira canug yar oo maalmo dhalana. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya. hooyo Soomaaliyeed oo ku nool dalka Sweden ayaa dhibano u ah booliska dalkaasi kadib markii ay ka qaateen carruur ay dhashay oo gaarayay 8 cunug dhalan wax ka yar 24 saac ayay ka kaxeysteen qolyaha carruurta u qaabilsan booliska dalka Sweden. gabar magaceeda lagu soo koobay Faadumo oo ah hooyo Soomaaliyeed oo sanado badan ku nool Sweden, halka sidoo kale muddo laga joogo dhowr biloodna ay ka kaxeysteen 7 cunug oo 6 ka mid ah ay hooyadaasi dhashay, halka midka kalena uu iyada la dhashay. wararka ayaa intaasi ku daraya in carruurtan ay uga dacwoodeen booliska hooyada dhashay, sidaasna ay booliska ku kaxeysteen ilmaha iyaga oo ku eedeeyay hooyadan Soomaaliyeed in aysan si wanaagsan ula dhaqmin carruurteeda. Maryan Taqal Xuseen oo ka tirsan SWDC ayaa arintan raadiyo kulmiye uga warbixisay. gabadhan waxay joogtaa Sweden, hadda waxay ku umushay Stockholm magaalada la yiraahdo. ay dhashay gabar Ilaahay siiyay, hore waxaa looga qaatay 6 ay dhashay iyo wiil yar oo walaalkeeda mudday maqnaayeen, maxkamad 2 jeer tageen, waa ku guuleysan waayeen, weli dacwadu way socotay. gabadhu xaamilay ahayd, markay umushay ayay u yimaadeen qoladii reer Sweden, ilmihii yar ay ka qaateen, gabadhina koomay gashay. qolooyinka carruurta oo xisaabsan ayaga u yimid oo la wareegay ilmihii. dowladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay in ay gacan ka geysato sidii hooyadaasi Soomaaliyeed ay carruurteeda u heli lahayd. waatan mar kale Maryan Taqal Xuseen. dowladda Soomaaliyeed dadka iyada ka mas'uula, shacbigan iyada ka mas'uula, xiriir hal la samayso. dowladda Sweden problemka gabadhaas haystaan maanta hadday dhimato gabadhaas Faadumo la yiraahdaa waxaa dilay dowladda Sweden. wax kasto hadday u diyaartahay dowladeena ay qaban kartaa. kuwa dibadaha lagu haysto xabsiyada ku jira waa doonta, waana awoodaa inay doonto dowladeena, laakiin xiriirka hadii laga xumeeyo dhibkeeda ay leedahay oo si toos dowladda ay ola xiriirto waa samayn kartaa awood haddaysan dan kale hayn waa daneeda. laakiin dowladda Soomaaliyeed awood ay u leedahay inay shacabkeeda dhibaatada wadan ku qabaan kala hadasho. waa iyada xabsiyada ka soo daynayso wadamada ka maxay dhaamaan xabsiga ku jiraan meel ay ku xirayeen, kuwa dibadda jooga waa la hayste. booliska wadamo badan oo caalamka ah ayaa sidan oo kale waalidiin Soomaaliyeed ee ku nool dalalkooda waxay marar badan ay ka wateen carruur ay dhaleen iyaga oo ku eedeeyay in aysan si wanaagsan ula dhaqmin carruurta.